kulankan oo lagu soo bandhigayay isku aadka qorituurka jadwalka tartanka kooxaha ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaasi ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta wasiiro xildhibaanada labada aqal ciyaartoyda gobolada dalka iyo gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale waxaa inta uu socday kulanka goobta lagu soo bandhigay qaabka jadwalka iyo isku aadka kooxaha ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo dhawaan ka bilaaban doono gobolkan Banaadir maanta waxaan isugu nimay qorituurkii iyo isku aadkii kooxaha dawlad goboleedyada iyo wareejintii qalabka maadaama barnaamijkan uu berri iyo wixii ka dambeeyay diyaar garowgiisu ahaa wuxuu barnaamij aad u qiimo badan aad baan ugu qanacsanay sida wax u dhaceen wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diire ayaa ka warbixisay sida ciyaaraha ay ugu bilaabanayaan gobolka Banaadir jadwalka ciyaaraha 7 bisha furmaaya oo u dhacaya sidan hortayda taala oo aad kulligiin ka wada helaysaan koobiyaasha 7 waa maalinta furitaanka waxaana la marayaa wareeg isfeelmento oo ah dhammaan tartamayaasha ay wada marayaan gobolka Banaadir iyo dawlad goboleedyada waxaana dhacaya ay ciyaarayaan 2 koox oo la kala yiraahdo Himilo iyo Dirir waana ciyaartoyda under 16 ama dhalinyarada maalinta furitaanka waa maalintaas jimcaha ayaa tartanka isku aadka sida hadda aad hortiina ka dhacday ayayna bilaabanaysaa waxayna soconaysaa ilaa 22ka oo ku cad jadwalkan qaabka uu noqonayo oo hadeer la idin la wadaagayo gabagabadii kulanka ayaa waxaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diire ku wareejisay qalab sporti wakiilada ka kala socday ciyaartoyda gobolada dalka Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho